كليتني وكلية بيرها ديجانك iyo xanaanada xoolaha ee Jaamacad Amuud waxa isku jirta saddex waaxood oo waaweyn culeyskeegana waa dareemi kartaa waana sababta uu qaranka Soomaaliland u leeyahay saddex wasaaradood oo waaweyn oo ay ka mid yihiin horumarinta beeruhu xanaanada xoolaha iyo deegaanka iyo horumarinta reemiga haddaba kulliyad ahaan anoo idin soo koobaya dareemayna waqtiga aad fadhidaan meesha waxaanu bixinaa برنامجka ugu horeeya waxa la yiraahdaa wax soo saarka beeraha ama crop production waa program aad loo jecel yahay dhammaan ay qaataan dalka oo dhan laga qaato ardayda ugu badan ee qaadataana waxay ka yimaadaan waxa kala duwan ee dalka haba u badnaadaan koonfurta oo uu yaalo Chinese-ka iyo opportunitiesku kulliyad kale labaad ee aan bixinaa waxa weeyaan ama programka labaad waa environmental science ama arrimaha deegaanka waxaad maqasheen deegaanka iyo sida loogu baahan yahay maanta iyo adduunyada oo dhanba arrimaha deegaanka ka shaqeynayso waxa kale oo aan bilownay sanadkii dhaweyd xanaanada xoolaha oo aad loo jecel yahay arday badan ay ku jirtaan dalkuna baahi gaar ah u qabo markasta waxaan ku salaynaa programka aan furayno xogta aan ka soo ururina dalka waxa sanadkan nagu cusub oo idin haynaa natural resource management maareynta khayraadka dabiiciga oo arday badan aad u danaynayso dalabkeeguna uu aad badan yahay lana soo dalbaday dalkuna aad u baahan yahay waxa kale oo ku jirta waxa kale oo ku darnay veterinary medicine oo ah caafimaadka xoolaha oo isagana laga soo dalbaday oo baahidiisu jirto haddaba waxaan idin sheegayaa dhammaan kulliyadda beeraha iyo deegaanka iyo xanaanada xoolaha ee Jaamacadda Amuud qofka ka barta wuxuu noqon karaa waxa uu noqon karaa inuu isagu noqdo consultant arrimaha beeraha iyo xoolaha iyo maaragtaanay environment-ka iyo climate change-ka iyo sidoo kale inuu dhammaan u shaqeeyay karo institutions-ka ay ka mid yihiin wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha waaxda ka hortagida mas'uuliyinka iyo wasaaradda horumarinta reemiga waxa kale oo uu qofku noqon karaa dhammaan waxay u shaqeeyaan ama hay'adaha wadanka jooga oo dhan waxay ka shaqeeyaan food security-ga environmental protection-ka iyo maareynta khayraadka dabiiciga ah dhammaan hay'adaha wadanka jooga 90% waxaanu leenahay xiriir fiican isla markaana waxay u tagi karaan partnership ama waxa kale internship ardaydeedu sida FAO WFP Canalike ADO DF inaad garanay baan u maleynayaa inaad qaar kale oo garanaysan ay ku jiraan baan u maleynayaa